بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan maanta ka hadli doonaa mowduuc aan magaciisa ula baxay qaabtabinta aragtiyaha sida loo tabiyo aragtiyahaaga loogu tabiyo qof aan aragtidaada aaminsanayn. adigu waxbaad aaminsan tahay, anigu waxbaan aaminsanahay. ma jirto laba qof oo hal shay isku wax ka aaminsan. wax kasta waxbaynu ku kala duwanaanaynaa. haddaynaan ku kala duwanayn xataa sida aynu u cabirayno ee aynu wax uga sheegayno ayaynu ku kala duwanaanaynaa. oo waxa lagu kala duwan yahay waxa afka qalaad lagu yiraahdo word choosing. taasi waxay keentaa badanka in aragtiyuhu si kala fogaadaan. waxaynu maanta isku dayaynaa inaynu isku soo dhaweyno aragtiyaha, inaynu isku soo dhaweyn karayno aragtiyaha, inaad adigu aragtidaada ku qancin karayso qof kale oo aan aaminsanayn. sababta aan mowduucan u doortay waxa weeyaan Soomaalidu waxa ay ku soo caanamaashay oo weligood iyo abadan ay ahaayeen dad xoolo dhaqato ah ama dad beerin jiray ba ahaayeen, manay la lahayn xiriir dheer ama xiriir toos ah dadka kale ee qalaad. taasi faa'iidana way yeelatay, faa'iido darrana way yeelatay. faa'iidooyinka waaweyn ee ay yeelatay waxa kamid ah inaanay ilaa hadda ummadda Soomaaliyeed dhaqankeedu wax weyn aanu iska bedelin ama diinteedii aanay ilaa hadda isbedelin. faa'iido darrana way yeelatay oo waxa laga yaabaa ninka Soomaaliyeed inaanad ka dhaadhicin karayn waxaasi waa qalad ama ka dhaadhiciba haddaad istiraahdo inay kugu adkaato. telefishinadeenna haddaad aad u daawatay waxaad arki kartaa waxyaabo lagu oranayo waxba laga doodayaa, ama fikir siyaasadeed baa laga doodayaa, ama fikir diineed baa laga doodayaa, ama fikir kalaaba laga doodayaa. fikir siyaasadeed marka laga doodayo iyo fikir diineed marka laga doodayo ha kala duwanaadaan wax laga doodayaa balse waxa isku mid ah sidii aad uga hadlaysay. waxa aynu maanta soo bandhigi doonaa qodobo muhiim ah oo muhiim ah marka aad doodayso ee aad aragtidaada soo bandhigayso. qodobka ugu horeeya waxa weeyaan waxa aad adigu aaminsan tahay, aragtida aad adigu aaminsan tahay maxaa horta laga rabaa intaanad kaba dhaadhicin qof kale oo qayrkaaya. waxa laga rabaa aragtidan aad haysaa inay marka hore adiga ka dhaadhacsan tahay, inaanad adigu aragtidan la caadifad iman ee aad la qanaaca timid. oo maxaan uga jeedaa aragtida marka aad la caadifatimi waxa weeyaan waa wax lagu soo buuxiyay sidaas saxa oo maanta hadii lagu yiraahdo maxaad waxa ku raacday aana tixi karayn qodobo aasaas ah ama qodobo aad ku qancin karayso qofkan kale ee magaranaysa wajahadaada ee qayrkaaya. wax marka aad qanaaca aaminto waxa weeyaan wixii baad ka sheegi karaysaa intaasoo kun oo macluumaad ah, intaasoo kun oo qaab baad u dhigi kartaa, intaasoo kun oo qof baad ka dhaadhicin karaysaa. haddii maanta lagu yiraahdo maxaad islaam ku tahay, maxaad muslim ku tahay, maxaad diinta islaamka ah ku raacday, haddii maanta lagu yiraahdo ma jirtaa sababo aad tixi karaysaa. haddii ay jirto sababo aad tixi karaysaa adigoo ku qanacsan baad maanta islaam tahay. haddii aanay jirin qodobo aad taxdaa waxa diinta wad caadifad aaminsan tahay oo waxa laga yaabaa because of ay aabaha iyo hooyada ay islaam ahaayeen in adna aad sababtaa u islaantay. marka hore qodobka ugu horeeya laga rabaa waxa weeyaan in aragtidaada aad qanaaca aaminsan tahay oo aad wax ka og tahay oo aad taariikhdeeda og tahay oo intaasoo kun oo qof oo ka dooday aad aragtay oo markii kadib waxaasoo dhan aad naftaadu ay waxaan ku qanacday. qodobka labaad ee lagaaga baahan yahay waxa weeyaan qofkan ka soo horjeeda ee garabkaaga taagan ee aragtida aad adigu sidato mid ka duwan wata waa inaad dhageysan karaysaa. dadka qaar baa runtii ay aad ugu adag tahay inay dhageystaan aragti aan tooda ahayn. waa inaad leedahay samirka aad ku dhageysan karayso qofkan aragtidiisa kale haba qaldanaato adiga oo arkaya inay qaldan tahay, haddana waa inaad dhageysan karaysaa. oo waayo adigay faa'iido ku tahay, isagay faa'iido u tahay. isaga faa'iiday u tahay oo waxa uu dareemayaa inuu ku sheegtay wixii oo dhan, dibadda adigana hadhow taadu si fiican u dhageysanaya oo sida aad u ixtiraamtay si leeg buu ku ixtiraamaya. adigana faa'iiday ku tahay oo waxay faa'iido kuugu tahay aragtidiisa iyo halka uu ka duulayo
iyo sida uu aaminay iyo waxa uu ku aaminay baad baranaysaa dabadeed marka aad taada ka dhaadhicinayso ayaa halka uu ka duulay iyo sida uu wax u soo arkay laftarkeeda ayaad wax ula soo eegaysaa aragtidiisa laftarkiisa ayaad calaamad su'aal saari kartaa oo wax ka weydiin karaysaa marka waa qodob aasaas ah inaad dhageysan karayso qofkan kale ka soo horjeeda aragtidiisa qodobka saddexaad oo isaga laftarkiisu aad muhiim u ah waxa weeyaan inaad kala taqaano umuuraha shakhsiga iyo umuuraha fikriga waa inaad kala barataa marka aad qof la doodayso xuduud baa jirta kala xayndaabta waxyaabaha shakhsiga ah ee aydan ka doodi karayn iyo waxyaabaha aad ka doodi karaysaan ee fikirkaasi ku salaysan waa inaad barataa xayndaabkaas iyo sida aan looga bixi karayn iyo sida adoo ku dhex jira xayndaabka fikirka aad isaga u duuli karayso ee isaga u weerari karayso taasi maxay ka saacidaysaa taasi waxay ka saacidaysaa qodobka afraad oo ah cayda iyo dhaliisha farqiga u dhaxeeya inaad kala barato qof haddii aad weerarto umuurtiisa shakhsiga waxa aad weerartay qofka waad cayday ee maad dhaliilin aragtidiisina maad dhaliilin oo tusaale ahaan ninkii isaga oo kale ahaa ee aragtidiisa aaminsanaa iskama dhex arkayo doodiina oo wuxuu arkayaa in laba nin oo iscaayaya laakiin ma dareemayo in qofkan kale la aragtida ahaa aad isaga laftarkiisa farta ku fiiqayso dhabarka taabanayso marka waxa aad iyo aad muhiim u ah in qofkan aad barato sida fikirkiisa oo qura loo weeraro ee aan loo gelin badiisa shakhsiga qodobka saddexaad marka aynu hadlayno waxa aynu nidhaahnaa markasta sidaas saxa sida rooni waa sida aragtidaada ayaad ka dhigtaa inay tahay tii u dambeysay ee geedka go'anta ahayd ee markasta saxa ahayd taasi waxay ku soo jiidaysaa in aan aragtidaada la dhageysan markasta aragtidaada marka aad dhiibanayso bir ha ku goynin haddaad bir ku goyso waxa jirta dad kale oo jeclaa inaad wax ku darto waxa jira dad kale oo aragtidan laftarkeeda aad ka hadlayso kaaga aqoon badnaa waxyaabo badan oo aad dhaafayso oo aad ilduufayso oo aad ka boodayso ilaabaysaa jirta markasta waxaad isku daydaa marka aad aragtidaada sheegato inaanad bir ku goyn ee si aad tidhaahdo waxbaan ilaabi karayaa aad tidhaahdo waxbaan hilmaami karayaa aad tidhaahdo intaas waa intii aqoontayda ahayd aad tidhaahdo anigu saasaan aaminsanahay waxaad samaysataa wax marka dambe haddii lagu yiraahdo waxbaad ilowday aad ma garanaysaa ayay ku noqon karaya dabar oo tidhaahdo haayo waanigii ku lahaa waraysiga dhexdiisa ama dooda dhexdiisa waxbaan ilaabi karayaa oo intaas aqoontaydu ay tahay qodobka ugu dambeeya ee aynu ku soo gabagabaynaynaa waxa weeyaan oo moodo inay aad inooga maqan tahay waxa tixraaca la yiraahdo marka la doodayo ee wax laga hadlayo ama ha lagu doodo radio ama television ha laga doodo ama qoraal ha lagu doobo ama cod ha lagu doodo sidii la doono ha lagu doodo si lagu doodayaa muhiim ah iyo wax laga doodayaaba muhiim ah laakiin waxa muhiim ah salaanka la raacayo iyo qaabka la raacayo iyo sida loo hadlayo qodobkan tixraacu waa qodob qof kasta iyo wax kasta muhiim u ah waa qodob isaga aawadii kitaabka quraanka uu soo degay wax kasta oo ka hadlayso waa inaad u sameyn karaysaa tixraac wax kasta oo ka hadlayso waa inay jiraysaa meel ay ku tiirsan tahay oo aragtidaada waa inaad meel ku tiirin kartaa waa inaad oran kartaa sida kitaabku sheegay waa inaad oran kartaa sida xadiiskaasi sheegay waa inaad oran kartaa sida buugaasi qoray waa inaad oran karaysaa sida aan hebel ka maqlay oo waxaan aad sheegaysaa waxa la dareemayaa markaa inay yihiin wax cad oo cadaymo leh oo si looga hadla leh oo meel loogu taga leh oo hadhow tolo xitaa marka aad adigu dhamaysato warkaaga inuu run ahaa iyo inuu been ahaa la kala xaqiijin karayo taasi waxay aad iyo aad kaaga caawin karaysaa adiga laftarkaagu inaanad hadal badan iyo sharax badan waxaan ka bixin ee si qura aad wixii qofka hor keento haddii aad isku fahmi weydaan waxaan ku gabagabeynayaa aragtiyaha bini'aadamku waa u muhiim aragtiyaha bini'aadamku aad bay muhiim ugu tahay laba qof oo isku caqli yihiin ma jiro taasi waxa la inooga baahan yahay markaa inaynu baranno qaabka loo hadlo qaabka loo doodo qaabka wax loo sambardhigo qaabka loo tabiyo aragtiyaha si aynu inaga laftarkeenu dadka kale wax uga dhaadhicin karayno sida inaga wax la inooga dhaadhiciyay waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkaygan anigoo idin leh Ramadaan Kariim